culimaadudiinka gobolka Togdheer ugu waaweyn ayaa kulan ballaaran isugu yimid waxaanay soo saareen bayaan ka kooban 12 qodob oo ay ku diidan yihiin meel marinta xeerka baananka ribada ah ee hor yaalla baarlamaanka Soomaaliland iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa qodobada bayaanka qodobka koobaad xeerka ka ganacsiga baananka aan islaamiga ahayn markaanu akhrinay waxaa noo soo baxday inuu ribo ama se dulsaar uu kula dhaqmaayo macaamiishiisa waxaana kamid ah qodobada sida cad u qeexaya ee xeerkan ku jira qodobka 13aad faqradiisa 2 iyo tiisa 5aad waxay qeexayaan in deynta qofka la siinayo uu ku soo celinayo dulsaar ama ribo qodobka 2 waxa kale oo xeerkan sheegaya inay aasaas u tahay waxyaabaha uu ka ganacsanayo lacag kaliya asna shariicada islaamku waxay u taqaanaa ribo qodobka 3aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 5aad ee ka hadlaya diinta faqradiisa 2 waxa uu sheegayaa xeerka dalka waxa laga qaadanayaa shariicada islaamka waxaana reeban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda shariicada qodobka 4aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 14aad faqradiisa 3aad ee ku saabsan cashuuraha iyo takaaliifta waxa uu dhigayaa in ribada iyo isticmaalka ganacsiga ee dib ku ah bulshada iyo ku xoreysiga sifaahan sharciga waafaqsan ay reeban yihiin qodobka 5aad culimadu waxay cadeynayaan in ka ganacsiga ribadu uu yahay xaraan sida ku cad quraanka kariimka ee sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam qodobka 6aad culimadu waxay ku baaqayaan in loo hoggaansamo amarka alle qodobka 7aad waxaanu soo jeedinaynaa in la joojiyo xeerkaas xaraanta ah ee dhigaya ka ganacsiga baananka ribada qodobka 8aad waxaanu ku baaqaynaa in golaha wakiilada ay si fiican u akhriyaan una fahmaan bayaanka culimada ee ku saabsan xeerka ka ganacsiga baananka ee hor yaalla golaha qodobka 9aad waxaanu culimo ahaan ka digaynaa haddii la dhowri waayo sharciga islaamka iyo shuruucda dalka u yaalla ee ku salaysan diinta islaamka uu wadanku khalkhal iyo fawdo geli karo qodobka 10aad culimadu waxay ka codsanaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Seelaayo inuu ka qayb qaato joojinta xeerka baalmarsan shariicada islaamka iyo shuruucda dalkaba ee 11aad waxa ugu dambeyn culimadu ay ugu baaqayaan baananka ku shaqeeya nidaamka waafaqsan islaamka ee ka furan dalka inay buuxiyaan firaaqa iyo waxa ay tabayaan bulshadu isla markaana ay yareeyaan faa'iidada ay saarayaan badeecadaha iyaga oo u turaya bulshadooda wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullah nimanka baarlamaanka ku jira waxaan leedahay shacabku wuxuu idin soo doortay waxa weeyaan maslaxada ummadda diinteeda danteeda adduunyo iyo diinteeda inaad u ilaalisaan dadkiina u ololeynaya inay joojiyaana waan u ducaynaa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay baa idin garab taagane ha ka noqonina mowqifkiina kuwa waxaan leenahay arinta maartu u ololeynaya inay hirgashana ilaahay kaga cabsada ku guuleysan maysaan waa Bashiir Xaaji Ibrahim Home Cable TV Burco.